Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada cashirkeenii labaad ee buugga Deutsch im Alltag A2. Cashirkeenan maanta wuxuu ku saabsan yahay dukaan weyn markaad dhex gashid, dadka iibinaya su'aalahaad weydiin lahayd iyo qaybaha uu u kala baxo. Waxaa kusii jira dialogue qof iibsanaya iyo qofkii iibinayay oo qoran oo aan af Soomaali ku turjumay. Orientierung im Kaufhaus waa dhexmarka Kaufhauska ama moolka qaybaha uu kala leeyahay. Untergeschoss waa qaybta ugu wada hooseysa, waxaana lagu iibiyaa Lebensmittelka, caanaha iyo khudradda sida tufaaxa iyo waxaas iyo furunka. Erdgeschoss waa wuxuu ka sareeyaa Untergeschosska, waxaana lagu iibiyaa baafuumka, cadarka, kosmeetiga, waxyaabaha gabdhuhu isku qurxiyaan, Zeitschriften, joornaalka ama saytunka la akhristo, Bücher, buugaanta iyo Büroartikelka, waxyaabaha birooga looga baahan yahay. Sidoo kale waxa ku yaala Erste Etage oo lagu iibinayo Herrenmode, dharkii ragga, Kindermode, ciyaalka dharkooga, Freizeit, waqtiga farayga ama aad shaqaynaynin dharka la xidho, iyo Sportiga, waxyaabaha dharka Sportiga loogu talagalay ama Sport wixii ku saabsan. Zweite Etage, qaybta labaad, waxaa lagu iibiyaa Damenmode, dharka gabdhaha, Accessoire, waxyaabaha la isku qurxiyo, Schmuck, xilqadaha iyo silisaanta. Dritte Stock waxaa lagu iibiyaa qalabka Technika, ha ahaado teleega, Fernseher, kombiyuutarka, software, Spielzeug, waxyaabaha ubadku ay ku ciyaaraan. Moolku haddaba intaas ayuu u kala baxayaa, laakiin muhiimadda ugu weyn ee hadda cashirku ku saabsan yahay waxay tahay marka aad dukaan soo gashid saas u weyn aad weydiisid qofkii iibinayay maxaa la yiraahdaa alaabta, aad af Jarmal ku taqaanid qaybaha uu u kala baxayay. Tusaale, waxaad weydiinaysaa dharka gabdhaha, waxaad odhan matalan wo finde ich Rocke, halkeen ka heli karaa jiib, waxaa lagu odhani im zweite Stock ama dritte Stock ama ama Damen Abteilung ayaa lagu odhan. Markaas waa inaad ogaataa magaca lagu yiraahdo Abteilung-yaasha. Abteilungna waa qaybaha uu ka koobay, matalan Abteilung, Damen Abteilung, Herren Abteilung ayaa lagu odhan. Marka muhiimaddu waa intaas. Haddaba moolka inta uu u kala baxayay yaan soo dhammaynay. Hoostiisa waxa ku qornayd su'aalo aan la dhammaystirin ama buuxin oo tusaale loo soo qaatay. Su'aalahaas waxay muhiim u yihiin marka aad dukaan gashid, aad qofkii iibinayay aad la kulantid, aad weydiin lahayd waxaasaan raadinayaa, waxaasaan u baahanahay, waxaasaan rabaa. Su'aalahan ayaa muhiim ah inaad baratid ama aad ogaatid. Tusaale, wo ist die Kinderabteilung, halkee amaba aaway ciyaalka qaybtoodii. Sidoo kale, wo finde ich die Herrenmode, halkeen ka heli karaa dharka ragga. Ich suche nach Milch, waxaan raadinayaa caano. Haben Sie Bücher, ma haysaa buugaan. Muhiimaddu waxaa weejin in aad hal su'aal aanad ku koobnaan oo aad su'aalo aad kala bedelatid su'aasha. Ist hier Computerabteilung, halkani ma qaybtii kombiyuutarada. Sind diese Herren Parfum, kuwani ma cadaradii ragga.
dialoogana wuxuu ku saabsan yahay dad dhar iibinaya iyo kuwii ka iibsanayay su'aalaha ay isweydiinayaan iyo say iskugu jawaabayaan. Sidan buuna ku bilaamayaa dialoogu. Qofkii wax iibsanayay ayaa hadalka bilaabay, wuxuuna idhi Entschuldigung, können Sie mir helfen? Raalli ahow, ma i caawin kartaa? Qofkii iibinayay dukaanka wuxuu ka yidhi yaa natürlich, haa dabcan, was kann ich für Sie tun? Maxaan kugu caawin karaa? Wuxuu yidhi qofkii wax iibsanaya mein Sohn braucht eine Jacke. Wiilkaygu wuxuu u baahan yahay jacket. Qofkii iibinayay dukaanka für den Winter, ma qaboobaha? Qofkii iibsanayay yaa schon warm, haa ku diiran, aber nicht so warm, laakiin aan xoog u kululayn. Qofkii dukaanka iibinayay welche Größe, qiyaastee? Qofkii iibsanayay das weiß ich nicht, ma garan karo. Kii loo iibinayay ama wiilkii yaraa yaa la weydiiyey wie groß bist du denn? Imise ayaa tahay ama mitirkee tahay? Einen Meter 43. Waxaan ahay mitir iyo 43 ayuu ku jawaabay. Qofkii dukaanka iibinayay das ist Kindergröße 140 oder 152. Schauen Sie mal da hinten. Waxay ku tiri waa qiyaastii ubadka mitir iyo 40 ama mitir iyo 52. Halkan dambe eeg ama dhinaca kale eeg. Dialoogan isagna waa dialoog kale, wuxuuna ku saabsan yahay nin iibsanaya suud. Waxa hadalka bilaabay qofkii dukaanka iibinayay, wuxuuna yidhi Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Maalin wanaagsan, ma ku caawin karaa? Qofkii iibsanayay jaakeetka ama suudhka wuxuu yidhi Guten Tag, ich suche einen Anzug. Waxaan raadinayaa suud. Kii iibinayay dukaanka wuxuu ka yidhi etwas Festliches oder fürs Büro. Ma kuwa xafladaha lagu tago mise kuwa shaqo? Qofkii iibsanayay wuxuu yidhi eher fürs Büro, kuwa shaqo ama suud shaqo. Ich bin Buchhalter. Waxaan ahay xisaabiye. Wissen Sie, maad ogtahay. Qofkii dukaanka iibinayay wuxuu ka yidhi welche Größe, qiyaastee ama lambarkeed rabtaa? Qofkii iibsanayay wuxuu yidhi oh, das weiß ich leider nicht, ma garanayo qiyaastayda. Qofkii dukaanka iibinayay wuxuu ka yidhi du brauchst Größe 52 oder 54, denke ich. Waxaad u baahan tahay buu yidhi 52 ama 54 saan u malaynayo. Qofkii dukaanka iibinayay oo hadalka sii wada wuxuu yidhi dann können wir erst mal hier vorne schauen. Waxa aan eegi karnaa dhankan hore ama kow halkanaa ka bilaabaynaa. Cashirkeennii maanta intaasuu ku dhan yahay. Insha Allah inoo iyo videoga dambe waxaan igaga tegayaa saas iyo nabadgelyo. Fadlan haddaad ku cusub tahay naga mid noqo si aynu kuu dhaafin videoyada cusubna. Jaraska active ka dhigo.